Berberyaha ka mid ah ayaa waxaa jiri jiray nin biyoole ah oo la yiraahdo Maxamed. Waxa uu biyaha ku dhex wareejin jiray suuqa dhexdiisa. Dadkuna aad ayay u jeclaayeen nadaafadiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa maqlay boqorkii magaalada ka talinayay. Waxa uuna ku amray wasiirkiisii in uu u yeero Maxamed. Wasiirkii ayaa qaatay faraskiisii waxa uuna suuqyada ka soo raadiyay Maxamed ilaa uu soo helay markii dambeeto. Kadibna waxa uu u keenay boqorkii. Boqorkii ayaa ku yiri Maxamed, hadda kadib qasrigayga ayaad ka shaqaynaysaa, waxaadna waraabinaysaa oo soo dhaweynaysaa dadka martideeda ah. Sidoo kalena waxaan ka rabaa inaad nooga sheekaysid aniga iyo martideedaba qisooyinka cajiibka lahaa ee aad la soo kulantay. Maxamedna waxa uu ku jawaabay boqorkaygiiyo amarkaaga ayaa jira waan aqbalay. Intaas kadib Maxamed gurigiisa ayuu ku laabtay isagoo faraxsan, xaaskiisa ayuuna u soo sheegay warkii farxadda lahaa. Subaxiina waxa uu bilaabay shaqadiisii waxa uuna soo xirtay dharkiisa ugu quruxda badnaa, waxa uuna soo dhaqday weelkiisii biyaha uu ku qaadi jiray. Waxa uuna bilaabay shaqadiisii inuu dadka biyaha siiyo. Waxa uuna ahaa mid mar walba marka uu shaqada dhameeyo boqorka ag fariista oo u sheekeeyay mar walba. Boqorkuna aad ayuu uga helay Maxamed sheekooyinkiisa qosolka badan, waxaana uu siin jiray lacag badan iyo waxa uu doonayo marka uu shaqadiisa dhameeyo. In muddo ah ayuu xaalku sidaas ku socday ilaa wasiirkii uu ka maseeray saaxiibtinimada dhex martay boqorka iyo Maxamed. Waxa uuna dareemay in booskiisii uu ka sii baxayo oo Maxamed boqorku aad u soo jeclaaday. Wasiirkii ayaa subaxii dambe ku soo jarmaaday xaafadda uu Maxamed degan yahay. Waxa uuna ku yiri Maxamed, boqorku aad ayuu u dhibsaday afkaaga urkiisa. Maxamed ayaa hal mar isku naxay waxa uuna u yiri maxaa sameeyaa wasiirkaygiiyo si uusan afkayga mar dambe u dhibin boqorka. Wasiirkii ayaa ku yiri tala ayaan ku hayaa, waa inaad hadda kadib qasriga markaad imaanaysid afka mar iskaga soo xirtaa si uusan boqorka afkaaga u dhibin. Maxamed ayaa ku jawaabay haye hadda kadib sidaas ayaan sameynayaa. Marka uu waagi bariyay weelkiisii ayuu hore u soo qaatay waxa uuna soo aaday qasrigii isagoona mar afka hore ugu soo xirtay. Balse markii uu qasrigii tagay boqorkii ayaa la yaabay, laakiinse ma uusan weydiin sababta uu afka marada ugu soo xirtay. In muddo ah markii uu Maxamed marada afka ku soo xiranayay, boqorkii ayaa shakiyay waxa uuna u yeeray wasiirkiisii, waxa uuna weydiiyay sababta uu Maxamed mar walba marada afka ugu soo xirto. Wasiirkii ayaa ku jawaabay waxaan ka baqayaa boqorkaygiiyo haddii aan kuu sheego inaad i disho. Boqorkii ayaa ku jawaabay isagoo caraysan, waxaan kuu ballan qaadayaa inaan ku dili doonin ee ii sheeg waxaad og tahay. Wasiirkiina waxa uu yiri boqorkaygiiyo Maxamed waxa uu kiraahaysta afkaaga urkiisa. Boqorkii ayaa hal mar booday isagoo xanaaqsan waxa uuna u tagay oo sheekada u soo sheegay xaaskiisii. Naagtiisii ayaa ku jiray boqorkaygiiyo qofkii waxaas oo kale ku yiri waa inaad madaxa ka jartaa, haddii kalena barina wax ka daran ayuu ku dhahayaa. Boqorkii ayaa ku yiri waa ra'yi wanaagsan, waa inaan dilaa. Isla subaxii boqorkii ayaa u yeeray askari ka tirsan ciidankiisa waxa uuna ku yiri qofkii aad aragto isagoo u baxsita albaabka qasriga ka sii baxaya waa inaad madaxa ku goysaa. Intaas kadib Maxamed ayaa yimaaday sidii caado u ahaydna waxa uu waraabiyay oo biyaha u qaybiyay dadkii martida ahaa oo boqorka u yimaaday. Laakiinse markii uu shaqadii dhameeyay oo sii bixiray waxa uu yeeray boqorkii waxa uuna ku yiri maanta ubax ayaan hadiyad ahaan kuu siinayaa. Markii uu ubaxii qaatay oo rabay inuu baxo ayay waxay arkeen wasiirkii. Wasiirkii ayaa ku yiri ubaxan yaa ku siiyay. Maxamed ayaa ku jawaabay ubaxan boqorka ayaa hadiyad ahaan ii siiyay. Wasiirkii ayaa ku yiri ubaxan keen aniga ayaa xaq u leh. Maxamedna ubaxii waa uu siiyay waa uuna iska baxay. Laakiinse wasiirkii ayaa isna damcay inuu baxo, balse askarigii ilka taagnaa ayaa arkay nin ubax guduudan wata oo soo baxaya. Halkaas ayuu qoorta ugu jaray wasiirkii xaasidka ahaa. Sidii caado u ahaydba subaxii dambe ayuu Maxamed shaqadiisii soo aaday isagoo wata weelkiisii biyaha. Kadib markii uu bilaabay inuu dadkii biyaha uga qaybiyo ayaa waxa arkay boqorkii oo u maleynayay inuu dhintay. Boqorkii ayaa intuu yaabay u yeeray waxa uuna ku yiri Maxamed, maxay tahay sababta aad marada mar walba afka ugu soo xirato? Maxamed ayaa ku yiri boqorkii wasiirkaaga ayaa ii yimi waxa uuna igu dhahay boqorku afka urkiisa uu kiraahaystay ee hadda kadib afka mara ku soo xiro. Ana sidaas darteed ayaan ugu soo xirtay boqorkaygiiyo. Boqorkii ayaa su'aal kale weydiiyay waxa uuna ku yiri aaway ubaxii aan ku siiyay. Maxamed ayaa yiri ubaxii waxa iga qaatay wasiirkaaga waxa uuna igu yiri aniga ayaa xaq u leh oo in la siiyo kaaga mudan ee ubaxan keen. waana siiyey.
boqorkii ayaa intuu qoslay waxa uu yidhi haa runtiis ayay ahayd isaga ayaa xaq u lahaa sidaas ayuuna ku dhintay wasiirkii xaasidka ahaa. عندما تكون نقيا من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم، يحبك الناس من حيث لا تعلم، وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.